madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guuldareystay inuu aragtidiisa uu ka dhaadhiciyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed xilli shirkii maanta Villa Soomaaliya ku dhaxmaray golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo Villa Soomaaliya uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan mar kalena loo ballamay in dib la isugu soo laabto golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo shir xasaasi ah uga soconaya xeendabka xirada xalane maxaa looga hadlayaa shirkaasi maadaama shirkii maanta uu ku soo dhamaaday is-afgaranwaa xogihii u dambeeyay ee ku saabsan shirkaasi ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona Axmed Madoobe oo markaan qarku u saaran in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u aqoonsato inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland xilli arintaasi khilaaf xooggan uu ka tagnaa xogihii u dambeeyay ayaa halkan kugu soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furusii ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saarso gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo Villa Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay waxay ku yeesheen Villa Soomaaliya iyadoo mudaba kulankaasi uu qabsi xoogan uu ka taagnaa halka lagu qabanayo iyadoo Axmed Madoobe sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani hore go'aankoodii uu ahaa in shirka lagu qabto xeendabka xirada xalane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku adkeysanayay in Villa Soomaaliya lagu qabto shirkaasi arintaasi marka loo fiiriyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu kaga guuleystay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed balse waxa uu aragtidiisa uu ka dhaadhicin waayay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed taasoo ahayd ajandooyin dhowr ah uu watay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana shirka ugu dambeyn uu noqday mid natiijo la'aan uu ku soo dhamaado iyadoona labada dhinac ay kala wateen ajandayaal dhowr ah maadaama lagu heshiin waayay qodobadii ay wateena waxay mar kale ay ku balameen in shirkaasi dib ay u dhigtaan isla markaana maalinta bari shirkaasi ay furaan waxaa la arkayay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo muujinayay in madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay Villa Soomaaliya ay geeyeen gawaari ku hubeysan askar iyo sidoo kale ciidankooda iyagoona korka waardiyeynaya villada maadaama ay si gaar ah looga soo watay maamul goboleedyadii ay kala xukumayeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulanka maanta ee ka furmay Villa Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid bulshada Soomaaliyeed dhamaantoodba ay u hanqal taagayeen waxa ka soo bixi doono maadaama shirkan dhowr jeer oo hore dib u dhac uu ku yimid isla markaana khilaaf xooggan uu ka tagnaa halka lagu qabanayo shirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed soo hordhigay ajandayaal dhowr ah iyadoona qodobada lagu heshiin waayo maanta ay ka mid tahay in madaxda maamul goboleedyada ee waqtigoodii dhamaaday ee 2 bilood gudahooda ay ku dhacdo doorashada madaxtinimo marka laga reebo maamulka Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyadoona maamul goboleedyadaasi si gaar ah loo tilmaamay Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug halka madaxda maamul goboleed halka ee golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay sheegeen in doorashada ay noqoto mid dadban si loogu soo doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna waxa uu ku dooday in magaca dadban meesha laga saaro balse doorasho kaliya ay dhacdo isla markaana la soo doorto madaxweynayaal kale haddii ay suurtagal ay noqoto qodobkaasi ayaa waxa uu ahaa mid xasaasi ah isla markaana doodiisa ay qaadatay saacado badan waxaa sidoo kale shirka intii uu socday la isla soo qaaday arrimaha doorashooyinka oo khilaaf xooggan uu ka taagan yahay qaabka dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hanaanka uu wado ay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si aadaha ay ugu soo horjeedaan iyana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu golaha mustaqbalka Soomaaliyeed sidoo kale uu ka dhaadhicin waayay hanaanka doorashada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu damacsan yahay in dalka ay ugu dhacdo doorasho qof iyo cod ah golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ayaga la soo jeediyay in muddada u harsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aysan suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah dalka looga qabto qodobkaasina waxa uu ahaa mid xasaasi ah isla markaana doodiisa ay qaadatay saacado aad u fara badan waxaana ugu dambeyn qodobkaasi uu ku soo dhamaaday is-afgaranwaa meeshaas waxaa ka muuqata in mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee aragtidiisii ay ahayd in uu ka dhaadhiciyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed labada ajanda ee maanta ee dooda adag ay ahayd in doorasho lagu qabto ee maamul goboleedyada ee waqtigoodii dhamaaday iyo sidoo kale in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
labadaasi qodoba golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si u dhan yihiin way ka soo horjeesteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona qabsaday in maalinta berito mar kale dib la isugu soo laabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna loogu baaqay in qodobadii maanta uu miiska uu la soo fadhiistay mar kale dib u eegis uu ku sameeyay isla markaana go'aankii maanta uu la yimaaday isna wax uu ka soo bedelo shirkaasi kadib markii laga soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed sida ay u dhan yihiin waxay si toos ah ay u aadeen hotelka Dagale halkaasina xilligan uu uga soconayo shir xasaasi ah oo saxaafadu ay ka madax banaan tahay iyadoo shirkaasi uu yahay mid albaabada ay u xiran yihiin xogo hoos oo aan helayno ama warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in shirkan lagu faaqidayo qodobadii maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horkeenay maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aankiisa uu ku adkeysanayo bila Soomaaliya gacan iraahday golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxa ay ka shirayaan maanta waxyaabihii ay bari ama qodobadii ay kula hortagi lahaayeen vilada maadaama mar kale ay codsadeen in dib la isugu soo laabto kulankaasi waxayna ay ka doodayaan qodobadii maanta miiska la keenay waxyaabihii ay ka dhaheen iyo sida marka bari la isugu soo laabto halka meel ay ka wada istaagi lahaayeen iyo sidoo kale qodobada kale ajendayaasha ah oo bari la filayo in ay ka doodaan labada dhinac ee kala ah golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale villa Soomaaliya arrimahaas oo idil ay shir ay ka yeelanayaan isla markaana doodooda waxay qaadatay muddo saacada ah maadaama bari lagu wado in ay soo saaraan go'aan adag oo ku aadan waxyaabaha maanta ay ka hadlayaan si madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ula hortagaan sidoo kale meeshan waxay fursad ugu banaan tahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo markii horeba shako ku jiray madaxtinimadiisa oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo horjeeday in uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland maadaama xilligan villa Soomaaliya uu galay isaga oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland taasina waxay u muuqataa in Axmed Madoobe halkaasi uu guul uu ka gaari karo maadaama isagoo loo aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland magaalada caasimadda Muqdisho si diiran loogu soo dhaweeyay isagoo oo sidoo kale loo aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland qada sharafeed uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maantana isagoo ah madaxweynaha Jubbaland villa Soomaaliya kulan uu kula qaatay halkaasi maadaama dowladda federaalka Soomaaliya horay ay u diidaneed in Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha Jubbaland balse ay u aqoonsanayeen inuu yahay shakhsi iskiisa ah isku caanashubay Axmed Madoobe ayaa halkan waxa uu ka helayaa fursad aad qaali ah oo muddo uu raadinayay maadaama markii hore dowladda federaalka Soomaaliya si aad ugu soo horjeestay waxa uu markaan hadii uu ku laabto Jubbaland uu ku doodi karaa markii ay dowladda federaalka Soomaaliya hadal ay ka keento in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho waxa uu ku doodi karaa oo awood u leeyahay in markii uu tagayay magaalada Muqdisho uu ahaa madaxweynaha Jubbaland waqtigiisina aysan ka soo wareeganin muddo 4 sano sidaas ayuu waxa uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe fursad ugu haystaa in uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ka adkaado maadaama Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka xilligan uu doonayo maamul goboleedyadii waqtigoodii ka dhamaaday in laba bil gudahooda ay ku qabtaan doorasho bari ayaa sidoo kale loo balansan yahay kulankan iyadoo labada dhinacba ay ajendayaal gooni ah ay kala wataan midkoodba midka kale uu ajendihiisii rabo in isaga loo dhaafo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayaa in ajendihiisii lagu raaco halka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ku jiraan Axmed Madoobe Saciid Cabdullaahi Danina ajendayaalkooda lagu raaco wixii xogo ay ku soo baxo shirka maalinta berina muuqaaladani xiga ay idinku soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furosay ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share gareey like inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku mahadsantahay daawashadaada